mahad maxamuud cabdi oo magacyadiisa afgarashadu yihiin abtidoon iyo abu yaasiin iyo maxamuud daahir warsame oo isagana loo yaqaan Dr. Raaga ayaa loo heystaa inay kamid ahaayeen horjoogayaasha kooxda Daacish. mahad maxamuud cabdi ayaa isaga dadaal ugu jira sidii uu asaasi lahaa koox kale oo Daacish ah kuwaas oo ka madax bannaan kooxda Daacish uu hogaamiyay Cabdiqaadir Muumin. safar dheer ayuu u soo galay sidii Soomaaliya uu soo gaari lahaa waxa uu haystaa dhalashada Ruushka oo muddo ku maqnaa waddankaasi waxa uu sidoo kale ku soo qaatay qayb ka mid ah noloshiisa waddanka Syria isagoo ugu dambeyn ku biiray kooxda Daacish oo ka mid noqday kuwa ugu sarreeya balse mar dambe way isqabteen. horjoogaha kooxda Daacish ayuu go'aansaday inuu asaaso koox kale. waxyaabaha gaarka ah ee xafiiska xeer ilaalinta soo bandhigeen waxaa ka mid ahaa warqad uu u qoray horjoogaha ugu sarreeya kooxda Daacish taas oo ku gudbinaya cabasho ay ka wadaan horjooga Cabdiqaadir Muumin. waxyaabaha ku qornaana waxaa ka mid ah بايعت أمير المؤمنين سنة 2014 أمير المؤمنين كوحا لبايعت من لبكن أفري طمنكي في محاضرة باللغة الروسية إنها دولة الخلافة أيها دولية وعليا أليس ما زلت ولك مزول كما بحين كما تنازل ما زلت على الطريق إما النصر وإما شهادة أوليه ولطريقي كما تنازل مبايعة عن لقري ولك مزول maxamed daa'uud daahir warsame oo magaciisa afgarashadu yahay Dr. Raaga ayaa isna lagu eedeeyay inuu ahaa madaxa maaliyadda kooxda sidoo kale ahaa caawiye xagga caafimaadka ayaa cadeymaha maxkamadda la keenay waxa kamid ahaa akoonada lacageed uu isticmaalayay shirkadihii uu isticmaalay jiray lacagaha sida uu sharaxay mar kale xeer ilaaliyaha guud ee ciidamada qalabka sida gaashaan la sare Cabdullaahi Buule Kamid. Dr. Raaga wuxuu ahaa horta amiirka maktabka oo caafimaadka wuxuu u xisaabsanaa Daacish dhinaca caafimaadka wuxuu kaloo ahaa ninka maaliyadda lagu soo diro. ku-xigeenka xeer ilaaliyaha ciidamada qalabka sida Dhamma Muumin Xuseen Cabdullaahi ayaa maxkamadda ka codsaday in la marsiiyo ciqaab u dhiganta qodobada ay ku soo eedeeyeen sida ku qoran eedeena waxaa ku qoran qodobadii aayadkan ku soo eedeeyna aayadda 33 iyo qodobka 221 iyo qodobka koowaad ee xeerka ciqaabta ciidamada qalabka sida mudana gudoomiye garsoorka maxkamadda sharafta leh dadkaani maxkamadda taagan qodobka iyo aayaduba yani binasil kitaab iyo sharciga dalkaba waxay ku mutaysteen ay ku mudan yihiin in la toogto dil toogsha lagu xukumo maxaa yeelay aayadda 33 waxay tilmaamaysaa qofka inta hub qaata ka hor yimaada يعني نظامك إسلامك هالكاس دجن ودسن أما ما تقانا فساد كل حوضا إلا الدلو بالنص الكتاب يكون متستن إلا توكتو وحيكون متستن حركة دلك ويال قضبك الله بقلباتني كم من نقشة كسور جد قرن كأد دجال ما يهو بيسن بل كم من نقشة ما أنا وهو جامياشي ودتك هو جامني مدن gudoomiye garsoorka maxkamadda sharafta leh labada eedeysanay maxkamadda taagan ee la kala yiraahdo mahad maxamuud cabdi iyo maxamed daa'uud daahir labaduba diinta islaamkana waxay ku muteesteen in la toogto sharciga dalkana waxay ku muteesteen in la toogto sidaas awgeed waxaan maxkamadda si sharaf iyo xushmad ku jirta uga codsanaynaa inay maxkamadda ku xukunto dil toogasho maxkamaddu waa maasantahay qareenada gudoomiye eedeysanaha ayaa maxkamadda ka hor sheegay inaysan wakiiladooda diidaneen kamid ahaanshiyaha kooxda Daacish balse ay ka laabteen fikirkaasi waxaa ka soo baxay ururka Daacish waqti hadda laga joogo adiga 7 bilood asaga laakiin fursad uma heleen inay hadda maanaha dawladda soo dhiibay waqti asaga soo dhiibay fursad uma heleen asla markii asaga soo baxay hal bilaa ka soo wareegtay asla markii waa la soo qabtay marka marqaati iyo cadeyn ku filan ma hayno anaga maxkamadda sharafta leh waxaan ka codsanaynaa in muwakkiliinteena الموكلين حريتهم دبلوماسي عديما يا قرن ما كان داعش وصومران وانا كسرت فكرت وصوته نين ديدن نين فكرتك ديدن نين ديالك ديدن نين امد waxa fikrada ka baxayba nin walba si uu shaqeysanayo uu shaqeyntiray gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida gaashaan la sare Xasan Cali Nuur Shuute ayaa soo xiray fadhiga maxkamadda dhageysiga garmaqalka la xiriiray eedeysanayaal mahad maxamuud cabdi iyo maxamed daa'uud daahir intaas ayuu ku dhameystiran yahay maxkamadda ayaana go'aan ka soo saari doonta duulaahiira horjoogayaashan oo aan ahayn dad dhalinyaro la marin habaabiya ayaa doonayay inay maskaxda dhalinyaro Soomaaliyeed ay lumiyaan si ay u adeegaan argagixisaan arxan iyo aragti lahayn Cabdiqaadir Ciise warbaahinta qaranka magaalada Muqdisho